Mooska waxa uu ka mid yahay qudaarta ugu badan ee dalkeena laga helo. Haddii aad ogaato faa'iidooyinka caafimaad ee mooska, waxaa hubaal ah in ay isbedeli doonto habka aad u aragto mooska. Cunidda moosku waxa ay kordhisaa tayada fayaqabka iyo caafimaadka jirka aadanaha. Moosku waxa uu leeyahay tamar, waxaana laga helaa maadada potassium-ka oo faa'iido weyn u leh caafimaadka. Sidoo kale mooska waxaa ku jira borotiin loo yaqaano tryptophan, kaas oo maskaxda siiya firfircooni. Sidoo kale mooska waxaa laga helaa macdano kala duwan sida faytamiinada B6, vitamin C, iyo macdanta qaar sida magnesium, copper, borotiin iyo dufan. Waxaa lagu tiriyaa mooska inuu yahay fawaakih hodan ku ah faytamiinada. Sidoo kale mooska ayaa hodan ku ah qaar ka mid ah macdanada muhiimka u ah caafimaadka jirka aadanaha, kuwaas oo ay ka mid yihiin sida potassium-ka, carbohydrate. Sidoo kale waxaa ku jira qaar ka mid ah aashitooyin jirka faa'iido u leh. Haddaba warbixintan waxa aan idinkugu soo gudbinayaa faa'iidooyinka uu moosku u leeyahay caafimaadka jirka. Mooska waxa uu leeyahay faa'iidooyin aad u tiro badan. Faa'iidooyinka uu moosku u leeyahay caafimaadka halkan laguma soo koobi karo, balse waxa aan dul istaagi doonaa kuwooda ugu muhiimsan. Moosku waxa uu isu miisaamaa dheecaanada jirka hormones. Mooska waxaa ku jira xaddi badan oo maadooyinka potassium-ka iyo vitamin B6, kuwaasoo ka shaqeeya soo saarista xaddiga dheecaan walba ee loo baahan yahay. Mooska waxaa aad ugu badan maadada potassium, waxaana ku yar cusbada. Hay-adda maamusha cuntada iyo daawada ee dalka Mareykanka ayaa u ogolaatay shirkadaha mooska ka shaqeeya inay si rasmi ah u sheegtaan in moosku uu awood u leeyahay in uu yareeyo khatarta dhiigkarka iyo shalalka. Moosku waxa uu yareeyaa niyad-jabka. Moosku waxa uu yareeyaa heerka cadaadiska maskaxda ee ka dhasha walwalka, walbahaarka iyo caloolyowga. Moosku waxa uu daweeyaa gaaska. Moosku waxa uu ka hortagaa gaaska iyo nabarada ku samaysma caloosha iyo mindhicirada. Moosku waxa uu ilaaliyaa tayada dhiigga. Moosku waxa uu ilaaliyaa tayada iyo caafimaad qabka nudayaasha dhiigga. Cun 2 xabo oo moos ah subax walba si aad uga badbaado dhiig la'aanta. Moosku waxa uu daawo u yahay calool istaaga. Maadaama moosku leeyahay baal ama fiber, waxa uu daweeyaa calool istaaga. Cun 2 xabo oo moos ah maalin walba si aad uga takhalusto calool istaaga. Moosku waxaa laga helaa tamar, energy. Mooska waxaa ku jira 3 sonkorood oo dabiici ah, kuwaasoo kala ah fructose, glucose iyo sucrose, kuwaasoo ka caawiya jidhka inuu helo tamar ku filan. Moosku waxa uu xoojiyaa lafaha. Moosku waxa uu fududeeyaa nuugista calcium-ka oo ah maado lafaha u roon. Sidaa darteed waxa uu lafaha ka dhigaa kuwo caafimaad qaba oo xooggan. Moosku waxa uu la dagaalamaa cudurrada. Moosku waxa uu yareeyaa sumowga jidhka, waxa uuna jidhka ka nadiifiyaa wasakhda. Moosku waxa uu kordhiyaa xusuusta. Cunidda moosku waxa ay sare u qaadaa awoodda xusuuseed ee qofka. Xaddi badan oo ah maadooyinka tryptophan, potassium iyo magnesium ee ku jira mooska waxa ay sare u qaadaan xusuusta. Moosku waxa uu yareeyaa halista dhiigkarka. Moosku waxa uu yareeyaa halista qofka ku qaadi karo xanuunka dhiigkarka. Maadaama moosku ay ku yartahay maadada sodium-ta, isla markaana ay ku jirto potassium badan, waxa uuna 10% yareeyaa halista dhiigkarka. Moosku waxa uu caawiyaa luminta miisaanka dheeriga ah. Moosku waxa uu sahlaa saarista iyo luminta baruurta aan loo baahnayn ee jidhku kaydiyo. Moosku waxa uu yareeyaa xanuunada ku dhaca maskaxda. Xaddiga magnesium-ta ee ku jirta mooska ayaa ka qayb qaadata yareynta xanuunada ku dhaca maskaxda sida Alzheimer-ka iyo Parkinson-ka. Daawada aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ka heshay muuqaalka, ha ilaabin in aad la wadaagto saaxiibadaada si ay iyagana uga faa'iidaystaan. Mahadsanid.